ma og tahay in generaalkii Soomaaliyeed la oran jiray General Aadan Gabyo Allah u naxariiste uu ka tagay taariikh aad u qiimo badan. General Aadan Cabdullaahi Nuur Gabyo waxa uu ku dhashay magaalada Madoogaashe gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya. waxa uu askarinimada qortay sanadii 1947 xilligaasi oo uu ku biiray ciidamadii la oran jiray KAR King African Rifle oo Ingiriiska uu lahaa batalyanka saddexaad ayuuna markaasi ka tirsanaa. Dibowgana waxa uu kaga baxay magaalada Jinja ee caasimadda labaad ee waddanka Uganda. isla sanadkii uu dibowga dhamaystay waxaa loo qaaday magaalada Jigjiga oo ciidamada KRI ee xilligaasi xarunta u ahayd. Jigjiga kadib waxaa loo sii bedelay magaalada Kismaayo sanadii 1950 markii dawladda Ingiriiska ee koonfurta Soomaaliya ku wareejisay guumeystihii Talyaaniga. Aadan Gabyo waxa uu ka mid ahaa cutubkii ugu dambeeyay ee laga soo qaado magaalada Kismaayo waxaana loo soo wareejiyay magaalada Nyanyuki ee dalkani Kenya. sanadii 1951 waxa uu ka mid ahaa ciidamadii Ingiriiska ee loo diray si ay uga soo dagaalamaan dalkii la isku oran jiray Korea. sanadii xigtay ee 1952 waxaa lagu soo celiyay dalkani Kenya. isla sanadkaasi ee 52 markii uu dhintay King George Ingiriiska, Aadan Gabyo waxa uu ka mid ahaa ciidamadii Afrikaanka ahaa ee loo qaaday caleemasaarkii boqoradda Queen Elizabeth si ay uga qayb galaan, wuxuuna ka mid ahaa askartii dalkani Kenya ee halkaasi la geeyay. subaxaasi boqoradda la boqorayay ama la caleemasaarayay, Aadan Gabyo Allah u naxariistay waxa uu ka mid ahaa ciidamadii ku horgaardiyay boqoradda. waxa uu safka hore uga jiray gaardiskii loo sameeyay caleemasaarka Queen Elizabeth, darajadiisana xilligaasi waxay ahayd Sergeant Major. sanadii 1953 waxa uu macallin tababare military ka noqday xerada militariga ee Lanet oo ku taalo magaalada Nakuru ee dalkani Kenya oo xilligaasi ahayd xarunta tababarada ee wadamada Bariga Afrika. 1954 oo ah sanad kadib waxa lagu celiyay batalyankiisii ama guutadii la oran jiray KAR oo markaasi dagaal kula jirtay jabhadii Maumauga ee Kenya xornimada u raadinaysay. mase og tahay dhageystow in sidoo kale General Aadan Gabyo uu taariikh ku lahaa dalka Soomaaliya. General Aadan Cabdullaahi Nuur Gabyo Allah u naxariistay waxa dalka Soomaaliya uu galay sanadii 1970 isagoo ka baxsaday maamulkii dalkani Kenya ee halkani ka talin jiray xilligaasi oo la sheegay in uu ka ahaa gaashaanle ciidamada dalkani ka tirsanaa. isla markii uu galay waddanka Soomaaliya waxa mas'uul looga dhigay xero markaasi cusbayd oo la oran jiray Botico, kadibna loo bixiyay xerada tababarka ee Xalane, halkaasi oo darajada gaashaanle sare uu ku qaatay sanadii 1976 wuxuuna joogay xeradaasi Xalane ilaa sanadii 1979 laga soo gaaro. laakiin markii la asaasay xisbigii la oran jiray hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed ee sanadii 1976 ayuu Allah u naxariistay General Aadan Gabyo waxa uu ka noqday xubin muhiim ah oo ka tirsan golihii dhexe ee xisbigaasi oo ahaa xisbiga kaliya ee ka jiray dalka Soomaaliya isla markaana hayay talada guud ee waddankaasi. sanadii 1979 waxa uu General Gabyo qaatay darajada generaalnimada waxaana laga dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya. sanadii 1986 ayuu haddana waxa uu noqday wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga ee xilligaasi isagoo wasiir buuxa noqday. Allah u naxariistay General Aadan Gabyo siyaasadda intaasi kagama uusan harin ee waxa uu durbaba noqday gudoomiyaha garab ka mid ah garabyada ururkii la oran jiray SPM. General Gabyo waxa uu bahwadaag siyaasadeed la noqday Cali Mahdi Maxamed oo markaasi hogaaminayay rag kale badan oo dhammaantood ka soo wada horjeeday General Ciideed, waxayna shirkii ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta caasimadda waddanka Ethiopia sanadii 1993 ay uga qayb galeen iyaga oo la yiraahdo ama watay magaca ah ururada 12 ah. sanadka marka uu ahaa 1995 waxa uu General Gabyo ka mid noqday urur ku bahoobay magaca SSA oo 13 urur ahaa oo uu gudoominaya Cali Mahdi Maxamed, wuxuuna General Gabyo ka qayb galay shirkii ka dhacay halka lagu magacaabo Soodare oo dalka Ethiopia ka tirsan iyo waliba kii kale lagu qabtay caasimadda Masar ee Qaahira sanadka markuu ahaa 1997 kaasi oo ay isaga iyo Colonel Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay isaga baxeen. wixii markaasi ka dambeeyay General Gabyo waxa uu muddo dheer joogay dalka Ethiopia isagoo misana mucaaraday shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee lagu qabtay waddanka Djibouti ee lagu soo dhisay dawladdii ku meel gaarka ahayd oo uu madaxweyne ka noqday Cabdiqaasim Salaad Xasan, wuxuuna dabadeed ka mid noqday guddoonka wareegga ah ee ururka SRRC-da ee lagu soo dhisay dalka Ethiopia sanadii 2001.